wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ka furtay shir socodona 3 cisho kaas oo isku keentay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Shirkan ayaa ciwaankiisu wuxuu ahaa shirka wadajirka bulshada iyo ka hortagga colaadaha soo noqnoqda iyo kobcinta nabadda iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed. kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta mudane wasiir Ashkir iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda, agaasimayaasha kale ee wasaaradda iyo sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo xubno ka socday wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka ee arrimaha gudaha. kulankan ayaa intuu socday waxaa aad loogu lafaguray waxyaabaha keenay inay soo noqnoqdaan dagaal beeleedyada ka dhaca deegaanada miyiga ee u dhexeeya dadka Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada iyo sida looga hortagi karo, waxaana isdhaafsaday aragtiyo kala duwan oo ku aadan sida loo joojin karo. wasiirka iyo mas'uuliyiin kala duwan oo kulankani ka hadlaya dhammaantood waxa ay qireen in ay tahay dhibaato arrimaha soo noqnoqonaya colaadaha ee deegaanada miyiga ee dadka Soomaaliyeed ay ku dhaqan yihiin. waa kuwan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kulankani ka hadlay. maanta kulankeenan wuxuu qayb ka yahay fulinta qorshaha isbeddelka qaranka guud oo ay udub dhexaad u tahay hanaankii dib u heshiisiinta qaran iyo istiraatiijiyadii 5 sano ee laga diyaariyay hanaanka dib u heshiisiinta qaran. mudane wasiir, kulanka maanta waxaa noo fadhiya odayaasha dhaqanka iyo kasoo qaybgalayaalka kala socda dhammaan dowlad goboleedyada, bulshada rayidka iyo aqoon-yahan kuwa oo muddo 3 maalin ah falanqeyn doona talooyin wax ku ool ahna kasoo saari doona hababkii looga hortagi lahaa colaadaha kusoo laalaabta deegaanada Soomaaliya. haddii ahaan lahayd colaada la xiriira siyaasad ama mid la xiriira dhaqan ama mid la xiriirta aano ama mid la xiriirta kheyraadka. waa kelmad dad kala fogeyn karto waay. marka social cohesionka ma ahan kaliya in oo wax u baahan waaye practical mis in lagu dhaqmo u baahan waaye bulshada in la isku hayo. marka insha Allah bariyan soo bandhigi doonaa xal waa la gaaraa, meel badan ayaa xal laga gaaraa. waxa waaye dhibaatada jirta waxa waaye fulinta, implementationka iyo korjoogteynta iyo dabagalka. colaadii markay degto waxa u malaysaa in la kala nasanayo oo la kala fadhiisanayo. marka taa inaan maalmahan ka shaqeyn doono insha Allah. dib u heshiisiintu waa bilar ka mid ah ama tiir ka mid ah tiirarka dowlad dhiska Soomaaliya. waxaan aad loogu qoray oo lagu faahfaahiyay qorshaha isbeddelka qaran ee xukuumaddu ay garwadeenka ka ahayd. waxaana xoog la saaray in mawduuca laga dhigo national cohesion, isku xirka qaranka oo dhan. hawshaas sidii loogu heli lahaa xal dhiigbax baa ku socda mujtamacan Soomaaliyeed goboladiisa kala duwan iyo deegaanadiisa kala duwan. dhibaatooyin badan oo qabiilka iyo dagaalada ahliga ah ee aan macnaha lahayn ay sababeen. marka ugu dambeysana dhiigga korkiisa la isku salaamaa oo laga heshiiyaa, iyadoo intaasi naga dhimatay oo la baaba'ay oo caruur la ogoonteeyay oo maaragtay dhib weyn la kala gaaray ayaa marka ugu dambaysa waxay ku dambaysaa inay ka heshiiyaan. marka intaan laga heshiinin, inta aan maaragtay heshiiskaas dhibaatada kadib imaanaya uusan dhicin, waxaan u baahanahay inaan ka hortagno oo aan la nimaadno qorshayaal wax ku ool ah oo suurto gelin kara inaysan arrintaasi dhicin hadduu Ilaahay idmo. kulankan waxaa la filayaa in 3 cisho ka socdo magaalada Muqdisho, waxaana gabagabadiisa laga soo saari doonaa warmutiyeed ku aadan sida xal looga gaari karo dagaal beeleedyada soo laalaabtay. maxamed Ruuray FF Somali TV magaalada Muqdisho. xanuun iyo shidadii ilaah baa shaafiye. shaafi hospital xumadaada u sheego. dhaqaatiir shakila-aan shahaado sare laba shaafi kugu diyaaray xumadaada u sheego. adigoon isi shidayn oo naftaada shalow ka tuurin, shaafi baaba diyaaray xumadaada u sheego. isbitaalka shaafi waa mid ka tilmaaman isbitaalada dalkeenna aqoon iyo qalabba. isbitaalka shaafi waxa uu caan ku yahay loogana dambeeya qallimada casriga. ilaah mahadiis waxa uu ku guulaystay qallimo lagu samayn waayey dalka gudihiisa, waana sababta looga maarmay dibadda. waxa uu caan ku yahay isbitaalka qalabka casriga ah ee
lagu sameeya qalimada casriga ka oo ay adeegsanayaan khubarada ku takhasustay qalimada casriga ah ee kugu diyaaray isbitaalka Shaafi waxa uu la gaar yahay kuna caanbaxay suuxdinta casriga ah ee aan lahayn cabsida badan waa jiifo sooka Shaafi Hospital waa astaanta daryeelka hooyada iyo dhallaanka waana tiirka daweynta cudurrada guud isbitaalka Shaafi 7 maalin 24 saac waheegan waana ku diyaar howlwadeenadiisa Shaafi Hospital wuxuu caan ku yahay halku dhigiisuna yahay xanuunkaaga ku sheega afkaaga hooyo si aad u daryeesho naftaada ka dhig doorashadaada koowaad Shaafi Hospital